kulanti wanaagsan daawadayaal dhegaystayaal ku soo dhawaada barnaamijkeennii xulka sheekooyinka dhaqan dhowr. sheekada aan idiin hayaa caawa waxaa la yidhaahdaa sagaalkii xabbo ee muufada ahaa. sagaal xabbo ee muufa ah waanu garanaynaa kibis ama dheh ama muufa dheh ama moofa dheh waanu garanaynaa. waxa weeyaan galeyda ama hadhuurka ayaa laga sameeyaa iyo cajiinka waad garanaysaan oo baasha balbalaaranoo dinaarka ama lagu dhejiyo laga sameeyo moofada amaba si kale daaway wax loogu sameeyo. sagaalkan xabbe ee muufada sheekadoodu waxay ahayd beri baa laba nin way socdaaleen. waxaan sheekadan ka baranaynaa horta sheekadan aan u soo qaadanay damaca iyo hunguri weyninka. qofka damaca iyo hunguri weyninka badani dhibaatada iyo cawaaqib xumada ku dhacda marka dambe ayay sheekadan ka sheekaynaysaa. sheekadaa yay ka sheekaynaysaa. beri baa laba nin intay isku lug darsadeen ayay safar meel u aadeen. safarka beriga hore diyaaradna ma jirin, baabuurna ma jirin, wax kalena ma jirine waxay ahayd safarka waa la lugeyn jiray. lugti lug ahayd ayaa loo lugeyn jiray. waxaa dhacday labada nin ee israacay mid wuxuu wataa ubaweysada ay wataanee biyaha ay cabbayaan marka laga reebo mid 3 xaboo muufo wataa uu sahay u wataa. midna 6 xaboo moofa ah ayuu jiscin u wataayoo sahay u wataa. marka labadooda la isku daro 3 iyo 6 marka la isku daro waa 9 xaboo muufa ah. marka sheekada waxay ku baxaysaa waxaa weeyaan 9kii xabee muufada ahaa baa la yidhaahdaa. waxaa la yidhaahdaa soomaalida waxay tidhaahdaa safarow saantaada horay sahaydaadana dib. taasay ku dhaqmeen. waxay yidhaahdeen ilaa meel aynu ka gaadhno yaynan cunin muufadan. meel aynu ka gaadhnay galabta ay u dhowaato meeshii safarka aynu u dhowaano aynu u soconnay yaynan cunin. marka way ku heshiiyeen sidii bay ku heshiiyeen. waxay socdaane gelinka markay cadceedda xagga geeska galbeed ay u liicday oy martay oo casar ay ku aadan tahay ayay daal iyo gaajo iyo oon la socon waayeen. markaasay geed weyn intay xaadheen hoostiisa oy ku tooseen ay ku leexdeen ayay mara gogladeen. maradii ay gogladeen 9kii xabee moofaday dhigeen. kanna kiishkiisii 6 buu ka soo bixiyey wuu dhigay. kanna kolaygiisii 3 buu ka soo bixiyey wuu dhigay. nin walbana ubbadiisii yaraydee biyaha ahaydna wuu la soo baxo wuu ag dhigtay. waxay rabaan inay cunaan oo magaaladii markan way u dhowdaho waa in cabbaare maqrib kadibba way gelayaane ay halkaa ku yara nastaan. ayagoon weli bilaabinoo haa iyo hakaalahadii iyo kabii iska bixiyo fariisto qumaati u fariistay ayaa nin iska socdo isagana masaafuroo geedkan higilkee weyne isna yidhi ku yara naso ayuu ka soo dul dhacay. ninku waa nin ganacsado oo sahaydii baa ka go'day oo sahayba mun wadanba. markuu salaamay waxay yidhaahdeen war bal soo fariiso sodohdaa kuma nabcayne meel wanaagsan baad ka timiye soo fariiso. haddaad sahay wadatana ku soo darso maradaa, haddaad wadinna kaale nala cun. war waxba masituu yidhi sahaye intaa idinla wadaaguyo. waayahay soo fariisay yidhaahdeen. qodiisuu ka soo fariistay. 3 nin weeye 9 muufo weeye ninkiiba 3 xabuu cunay. يعني waa sida qorshaha waa saas way
iyadoon xitaa la iskala siin la oran wadaad saddexaas ale hada saddex oo wix yaalaan caqliga nin kasta xisaabta wuu garanayaa dee dadka wuu garanayaa xisaabtoo nin walba markuu saddex cunada kii kale markaad xabad cuntoo laba waxa kuugu jiro sida waad garanaysaa adigu meesha waxay sheekaystaanoo biyihii ku kabadaanoo kolba cunaanoo kolba ninba qaatoo 9kii waa la wada dhammaystay marka la wada dhammaystay ninkii dusha ka yimid een sahayda wadan ee nimanka la wadaagay muufada 9 shilin buu jeebka ka soo bixiyey 9 shilin ayuu jeebka ka soo bixiyey markuu 9kii ka soo bixiyey buu wuxuu saaray maradii laga cunay muufada intuu dul saaray wuxuu yidhi waad mahadsantihiin anigu de cunto maanahayna cuntadii wakaa abaalgudkeedii meeshaasaan idiin saaray lacagtuna berigaa dee waa qaali oo 9 shilin aad bay lacag badan u tahay kadibna wuu istaagay wuuna nabdeeyey nimankii maca salaameeye wuu iska dhaqaaqo socodkiisu sii watay markan wuu xokay waxoogaa saddex xaboo muufa iyo biyo iyo waxbuu cunay markuu ninkii ka libdhay labadii nin baa isu soo haray labadii nin marka waxay doonayaan inay kala qaybsadaan lacagtii inay kala qaybsadaan bay doonayaan wuxuu ku yidhi ninkii midkii 6 muufada alahaabaa qaaday lacagtii 9kii shilin wuxuu ku yidhi sidii muufada un ay ahayd noogu kala qaybi adigu 3 baad lahayd 3 shilin qaado aniguna 6 baan lahaa 6daydii waa ii kan 3daada faraqaaga ku xiro anna 6dayda faraqayga aan ku xiro socodkeenni aan wadano ilaahay baaba meel lacag naga siiyey dhowe ninkii wuxuu yidhi kalla taas ma noqonaysu yidhi ha ku fakerantaa ninkan wuu cusbaa annagu noo yimid labadeena noo yimid lacagta wuuna wada siiyey 4 shilin iyo bar iyo 4 shilin iyo bar baad u kala qaybinaysaa haddii kale wax kala soconaya ma jiraan arrintii ninkii waa yaabay war wuxuu yidhi say ku dhacaysaa muufada ninkii min 3 baan cunay ninkii 3dayduu qaar ka cunay waa kan sidan weeye kan waa diiday ninkii wuxuu yidhi 4 iyo barood isiisa mooye 4 shilin iyo nus aad isiisa mooye ma soconayso wuxuu yidhi anigu taa ma ogolaanaya anee dad noo kala garsoora aynu u tagno haddaba waayahay buu yidhi halkii bay lacagtii 9kii meel ku wada xireen magaaladii markay galeen bay nin maxkamada garsoora u tageen oday sheekadii bay uga sheekeeyeen waxay yidhaahdeen arrintanaan isku haysanaa lacagtiina waa tan lacagtii buu ninkii rogrogo uu fiiriyey sheekadii buu dhegaystay wuxuu ku yidhi 9kii shilinba intuu qaado ninkii 6 xabee muufada lahaa buu siiyey 9kaba adaa iskale halkaa ka bax buu yidhi oo maxaa dhacay buu yidhi kii hore kii kale 3da lahaa wuxuu yidhi 3dii nin 9kii muufada ah nin walba 3 xaba ma cunay mase ma cunin markaasuu yidhi wuu cunay adi 3dii aad wadatay adaa cunay buu yidhi ninkan 9ka shilin bixiyey 3da muufada uu cunay ninkii 6da lahaa buu cunay 3diisa maxaad ku leedahay buu yidhi adigu waxba kuma lihid 3da lagu siinaya xitaa gardaray ahayd ku kala tag buu yidhi qaado 9ka shilin ba adaa iskale haddaad wax ka siinay saaxiibkaasi laakiin sida cadaaladda waa sida faraqa intuu ku guntaday buu yidhi waxba siin maaye halkaasuu kala baxay isaguna kii wax badso hunguri weynow wax badso wax beel bay leedahay halkaasuu isagoo fara maran ayuu ka jiciirtoo ka dhaqaaqay waxaa loo baahan yahay marka qofku inuu damaca badan iska daayo damaca badan inuu iska daayaa loo baahan yahay maxaa yeele damaca badan wuxuu keenaa dhibaatadaasoo ah in qofku wixii uu doonayey wax badan buu doonayey waxbaba inuu waayo marka sheekadan waxaan kaga faa'iidaysanaynaa in qofka hunguri weynanka iyo damaca badan la iska daayo oo wax wadaagga yar iyo wax wadaagga dhexe iyo kuwa badanba la ogolaado dadkana lala sinaado wixii xaq aad u leedahayna la qaato waxaadan xaq u lahayna aadan u doodin ayaa laga baranayaa sheekadanna dhegaystayaal daawadayaal sheekadeenniina
halkaa inoo joogto.